dumarka Soomaaliyeed ma waxay la daaladacaan xanuunka ruuxaaniga ah mise waxay la daaladacaan xanuun oo caafimaad darro u keenay marka maadaama uu soo batay in ay dumarka Soomaaliyeed 80% ay ka hadlaan xanuun ruuxaaniga nahaayo waa la yeelaystay waa la sixiray waxaan rabaa maanta inaan inii cadeeyo xanuun ruuxaaniga ma qabtid dhibaatadu waxay tahay waa caafimaadkaaga fiitamiinadaada ayaa naaqus ah marka caafimaadka waa muhiim qofka bini'aadanka inuu ogaado meesha laga haya marka waxa weeye iyo in fiitamiino jirkiisa uu ka maqan yahay hadduu fiitamiino jirkaaga ka maqan yahay waxaad ogaataan Soomaaliyeed in mar walba xanuun yani caafimaadkaaga uu hooseynayo sababtoo ah waxaan ku soconno qofka bini'aadanka waa inuu balance ahaada fiitamiinadiisa marka saa awgeed waxaan rabaa maanta inaan asxaabtayda iyo dadweynaha oo daawdaba kulli inaan maanta inii sheego oo problemadan aan ka cabaadayno oo dumarkii dhan wada leeyihiin ilaa igu dhacday sixir baa waa la sixiray waxa weeye ruuxaani xanuun ruuxaani aan leeyahay in aadan qabin xanuun ruuxaaniya oo dhibaatada ay ku haysato ay tahay in fiitamiinada ay kugu yar yihiin maxaa xala la socdo walaashiina mulki si xushmad ku jirtana asxaabtayda qaaliga ah maadaama go'di iga baxayo maadaama aan mar walba waxyaalo aan inii soo gudbiyo waxaan inaga codsanayaa subscribe-ka ha iloobina like-ta share-ta waa dhinaciina la socod wanaagsan insha Allah dumarka Soomaaliyeed runtii aad iyo aad waxay ula dhiban yihiin xanuunada ruuxaaniga wax muu ka jiraa arrinka ani kulley saan u arko dumarka Soomaaliyeed waxay iska dhaadhiciyeen intooda badan inay qabaan xanuunada ruuxaaniga ma beeneenayno oo way jiraan sixir oo wuu jiraa il oo xanuunada ruuxaaniga way jiraan oo ma aragtay dad laga daaweeyay dad ma aragtay ay ku dhaceen xanuunadaas ay hayaan hore waan u aragnay waxaan beeneen karno ma ahan laakiin waa su'aasha gabadha Soomaaliyeed waxaan ognahay in ay la tacaalayso caafimaad daro sababtoo ah ayna san ogeen waxa u keenayo caafimaad daradaas haddaba maanta si fiican u dhageysta anaa inii sheegayo waayo macquul ma noqon karto Soomaaliyeed 80% in dumarka Soomaaliyeed ay la tacaalayaan mise ay la xanuunsan yihiin xanuunada ruuxaaniga ah sababtoo ah dumarka Soomaaliyeed horta waxaan ognahay inay yihiin dumar aad wax u dhala oo ilmo badan dhala waxaan ognahay dumarka Soomaaliyeed inay yihiin dumar oo cunto xun cuna oo yani cuntada culture-keena dhaqankeena ayaaba iska ah cunto oo aan nadiif ahayn cunto caafimaad aan ahayn sida bariiska baastada hilibkan oo gaduudan waxyaalahan ma aragtay Soomaalida ay guryaha ku samaystaan Allahumma salli ala Muhammad talabaadna waxaan rabaa inaan u sheego dumarka Soomaaliyeed horta marka hore fiitamiinadiina ma la socotiin ma qaadatin fiitamiino waa su'aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo qofka bini'aadanka markuu fiitamiin uu jirkiisa ka maqan yahay wuxuu yeelanayaa intaas oo caqabadood ayaa jirkiisa ku soo siyaadayo oo dhinaca caafimaad daro ah sida lafa xanuun ayuu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa madax xanuun wuxuu yeelanayaa murqaho xanuunayo daal fara badan يعني wuxuu yeelanayaa ma aragtay hurdada ku yar wuxuu yeelanayaa overweight hilib badan oo karo wuxuu yeelanayaa ana inay kala sheegi doono mid walbaba noocyada yani fiitamiinadooda ee kale oo u fiican in loo kala qaato yani waxyaalo badan aad jiro yani overweight ayaad iska noqonaysaa hilibka iska kaa korayo marka su'aasha waxa weeye aan rabo inaan ka hadlo haddaad tahay gabar Soomaaliyeed waan ognahay inaadan fiitamiin aadan qaadan mana jecla inta badan Soomaalida fiitamiinada inay qaataan taas ayaa markaa u keenayso xanuunadan inta badan aan common ka wada nahay
iyo dhashan faraha badan oo qofkii dumarka ahaa dhiig badan ka baxayo. marka bahalka la leeyahay wax ka wadaa oo yani fitamiinkan la leeyahay fitamiin D-gan hadduu kaa maqan yahay waxaad ogaataa in aadan ka baxeen xanuun. waa inaad iska soo kontarooshid fitamiin D-gaaga. ka labaad waxa weeye fitamiinada sida B12ka hadduu jirkaaga ka maqan yahay, xanuunadan oo aad u malaysa in xanuunada ruuxaaniga ay ku haayaan, kuwaasnana waxa weeye way keenaan. haddii birta baasha la yiraahdo jirkaaga ay ka maqan tahay, haddaan si kale u dhigo feerada, waxa weeye iyadana jirkaaga waxa weeye kama baxayo xanuunadan aad sheeganaysid, calaamadaha lagu garto oo kale ayaad yeelanaysaa. allahuma salli calaa maxamed. fitamiinada oo dhanba waxa weeye jirkaaga, laakiin saddexdaasa ugu muhiimsan. jirkaaga hadday ka maqan yihiin, mar walba waxaa tahay qof iska xanuunsan, sababtoo ah daal, muruq xanuun, lafa xanuun, madax xanuun, timahoo ku daata, maxaa la yidhahdaa overweight aad noqotid, yani waxyaalo badan ayuu keenaya marka oo maxaa la yidhahdaa fitamiinada jirkaaga ka maqan yihiin. waxaa kaloo soomaalideena inta badan ku badan anemiyada iyo tayroodka. anemiyada waxa weeye markuu dhiigaaga yani uu eber yahay. inta badanna dumarka Soomaaliyeed markay dhalayaan waa lagu sheegaa dhiig yaraan, qaar dhiigaaba lagu shubaa, qaar waxa weeye web u dhintaanba, dhiigbaxay u dhintaan. marka waxa weeye anemiyadana Soomaalideena waa xanuunada ugu badan oo maaragta dumarka Soomaaliyeed ku dhaca. way fahanteen soo maahan. marka taas ayaa ay u maleeyaan dumarka Soomaaliyeed in ay la xanuunsan yihiin xanuunada ruuxaaniga, laakiin xanuun ruuxaaniya ma qabtid. waayo macquul ma noqon karto community dhan, society dhan, dumarkooga inay ka wada cabaadaan hal cudur oo ah lafa xanuun, madax xanuun, dhabar xanuun, murqaha ku xanuuna, daal fara badan, timaha ku daata iyo overweight aad noqotid. intaas waaye inta badan caajis fara badan. intaas weeyaan inta keenta xanuunadan ay u maleynayaan inay qabaan xanuunada ruuxaaniga, sababtoo ah qofka dumarka ah intaasba hadday ay qabto sariirta kama soo hoos baxi karto. runtii guriga waxba uma qaban karto, mar walba waxa weeye waaba qof xanuunsan. laakiin markii fitamiinadaada balance ay ku yihiin, regular ku yihiin, waxaad ogaataan waxa weeye qof firfircoon aad noqoni, yani waxa weeye waxbaad qabsani, noloshaada dhan waxa weeye yani horumar ayaad sameyni. laakiin qof intaasoo wax iskugu yimaadeen oo fitamiinadiisana ay aad u naaqus yihiin, waxaad ogaataan Soomaaliyey wax ruuxaani la yiraahdo, wax sixir la yiraahdo, allahuma najina, wax la yiraahdo il ma jiro. waxa weeye waxa kaliya oo aad la dhiban tihiin waxa weeye waa fitamiinada inagu yar. iyo gabadha markay gaadhoba waqtiga menopause-ha la yiraahdo oo ay 40kaba kor ay u dhaafto ilaa 50ka, waxa weeye waxa u yimaad wax la yiraahdo menopause oo caadada markay ka dhamaanayso qofka dumarka ay galayso waqtiga oo ay ka baxayso. marka menopause-haas calaamado badan uu leeyahay. marka gabadha iyadoo ku jirta, qofkii dumarka ahaa iyadoo ku jirta waqtiga ayaa waxay leedahay aniga waxa weeye waa la isixray, aniga waxa weeye waa la ilaystay, aniga waxa weeye xanuun ruuxaaniya ay haayo. laakiin calaamadaha lagu garto muxuu yahay? calaamadahaas waxa weeye waa calaamado fara badan aad u maleynayso qofka meel in laga haysto, sida maxaa la yiraahdaa kuleel fara badan uu isku arkayo, hurdado ku yar habeenkii, maxaa la yiraahdaa allahumma salli ala maxamed, timiyo ka daadanayo, hilib oo meel uu ka soo korayo, si kasta aad u cayaartid, jimicsi kasta aad tagtid, hilibka aana kaa dhaceen. taasna way keentaa yani marka menopause qofka uu ku jiro waxa keenayo yani waxa kale oo keentaa ninkaaga oo aad la kulmi kareen oo aad dhibsanaysid
dhinaca sexualka kugu adkaanayo yacni isbedelo badana jirkaagii u imaanayo marka qofka wuxuu iska dhaadhicinayaa waxaan qabaa jin caashaq waa la ilaystay ninkii aniga dhexdayna balaayana kala dhex dhigay xataa marmar qaarkood waxaa jiro ninka kuu urayo يعني نكيا إسكنا عيسى واحد بسنة واحد ليدا واحد محا يهرب ويهرب فرديا مركا عقبة بدن أيو ليه هاي حتى مني بوصها لكن دو مركا ما قرطان أنت بدن وإنه تقترك وشيغة ويرهدا واحد كتشرتا وقت جي مني بوصها ومرك سجع على مدها إسكالي مركا قفك مركو مني بوصها كتشرو حتى حلال بدن أي تشرو أو تقترك وليه يعني حلالكاس aan ku haynaa hadaad rabtid oo dhinaca hormoonatiga ah oo taqtarkaaga waa inaad la kaashatid aad weydiisatid aad tiraahdid aan dhibaatadaasaan qabaa waxaana muu qabsan karo caruurtaydii iyo gurigeygii ninkaygii waxa weeye lama kulmi karo waxyaalaha oo dhan waxa weeye taqtarka kaa caawinaya waa inaad adiga aad dalbatid caawitaan laakiin problemka ugu weyn oo dumarka Soomaaliyeed haysta waxay ka liitaan waa dhinaca caafimaadka wallahi waa dhinaca caafimaadka dumaro waxaad arkaysaa dumarkii yani noloshoodii oo dhan waxay ay saareen waa ilmo inay dhalaan iyo inay maxaa la yiraahdaa ay ku mashquulaan inay say lacag oo ay ugu ordi lahaayeen يعني أي أسمين لها يجوا نمو إسلوبين لعكتن ما حمو إنا سميس العقارن وأقصه هطلي قفك بدي هذا كأنه كيد ليه هو في عن طهي لكن كيد كاغو أدي إنا إسكيلسيت عندهم مربضان والله ثم بدن أي وحي إيران ملكي ما شاء الله وتسكرهم طهي صوابته عنتظر إذا وانكفكر عن نمبر 1 أو وحول بحن هرمرسية عنتو نظيفة وعافيمات oo jirkayga nafaqo badan iyo fitamiinaad badan aan ka helayo ayaan qaataa ka labaad waxa weeye waa inaan yani aniga hurdadayda inaan ugu yaraan 8 ilaa 12 saacadood aan hurdo oo li qashqashaadin waqti horena aan seexdo waayo yani inta badan xanuunada oo ma aragtay oo marka yani hurdada ay ka xun tahay wuxuu keenaa in caafimaadkaaga hoos u dhaco sababtoo ah yani dumarka waa wax loogu talagalay inay nasato qofka bini'aadanka oo dhan ugu yaraan 8 saacadood waa inaad si fiican hurdada aad uga bogatid marka 8 saacadood ilaa 12 saacadood ayaan jeclahay inaan jiifto inaan korkayga aan wax walba iska marin oo aan alaabtay ka qaalisan tahay oo ka nafaqeynayso skinkayga inaan mariyo inaan fitamiinada jirkayga ku habboon oo hadday noqoto fitamiina anti age hadday noqoto fitamiinada oo skinka dhalaalinayo oo qurxinayo oo ma aragto hoos glowing ka sameynayo hadday noqoto fitamiinada wrinkle-ka yani iyo ma aragto da'da sida collagen-ka oo kale jirka qofka markuu 40 kor u dhaafo ilmo badanna uu dhalo jirkiisa waxa aad iyo aad ugu muhiim ah waa collagen-ka dumarka Soomaali inta badan collagen ma qaataan marka waxyaalahaas ayaa keenayo in ma aragtay caafimaadkaaga uu hoos u dhaco waayo fitamiinada waa muhiim dumaro please gabarba gabadhay ka qurux badan tahay gabarba gabadhay ka dhalinyarsan tahay iyadoo da'deeda laga garanayn iyadoo qof weyn ah waxa weeye iyada ayaa waqti iskaliso marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa iska ilow ilmahan way korayaan ilaahay ayaa adduunka kaystay isagaa waxa weeye ilaashto isagaana korinayo isagaana ma aragto meeshii marayaan og maalinta xabiye biyo ahaayeen ayaa loo qoray adi waajibaadkaaga waxa weeye tarbiye ma aragtay waxaad wax u tari kartid aad meel fiican ka soo saari kartid ka soo saar laakiin stress ha iskugu ridin adiga nafsadaada wax walba first ka dhig ninkana saasi la eg adiga markaad yani aad qurux badnaatid adiga markaad nuurtid adiga marka maskaxdaada ku caafimaad qabto ayaa ilmahaaga iyo ninkaagana ay ku leeyihiin waxa weeye waxaad tahay hooyo wanaagsan waxaad tahay xaas fiican laakiin hooyo iyadaba isdaryeeleen
hooyo iyadaba dhibaataysan hooyo iyadaba caafimaadkeeda liita walaa ninay waxba u tari kareen walaa caruurayna kori kareen markaa dumarka Soomaaliyeed mar walba waxaan ku guubaabinayaa mar walbana aan leeyahay caafimaadka waa muhiim ee caafimaadkiina ka taxadara fitamiinadiinana qaata fitamiinada ugu muhiimsanna oo dadkan qurbaha jooga aan ku waaninayo waxa weeye waa vitamin D-ga waa vitamin B12ka waa feerada oo anemia maadaama dumarkeena Soomaaliyeed dhan aan wada qabno anemia dhiig yari waa feerada waa collagen-ta oo ma aragtay skinkaaga iyo quruxdaada mar walba ilaalinayso يعني waxyaalo fara badan oo dumarka vitamin C-da fitamiinada oo dhan multivitaminka yani gurigaaga waxyaalahaas dhan yaa laga waynin cuntadaadana hagaajiso cuntada waa muhiim waa number 1 runtii cuntadaada hadday kaa qaldan tahay qofka dumarka ah mise qofka bini'aadankaba kama soo haro waxa afkiisa uu geliyo haddii afkaaga cunto nadiifa aad gelisid jirkaagu ka muuqani haddii cunto wasaqa aad gelisid oo caafimaadkaaga damage gareynayo dabcan jirkaaga ayuu ka muuqani oo mar walba waxaad arki inaad tahay qof yani wejigiisa iyo jirkiisaba liita nabraha ka soo baxaya jirkaaga haaraad yeelani yani adoo dhan waxa weeye waxaad noqoni qof ebera marka waxaan jeclaystay runtii dumarka Soomaaliyeed waxaa iga hor yimid mar walbana يعني aan ka yaabaa markay yiraahdaan dumarka Soomaaliyeed waxa nahayo xanuuno ruuxaaniya 2-3-10% hadday ugu badan tahay aaban niraahno 15% wuu hayn karaa xanuunada ruuxaaniga okay laakiin mujtamac dhan society dhan ayuu hayaa xanuun ruuxaaniya oo waxaad iska dhaadhiciseen markaa cuntadiina hagaajiya hurdadiina hagaajiya fitamiinadiina hagaajiya stresska iska yareeya quruxdiina ka fakara iyo caafimaadkiina guud ahaanba ayaan ka hadlayaa marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asxaabteeda qaaliga ah qofkana niyadaas haddii niyadaada ay degan tahay yani qalbigaaga khayr aad u sheegtid mar walba يعني نوشاada oo dhan way iftiimaysaa laakiin haddaad si kasta fitamiin u qaadanaysid si kasta ma aragtay aad yani waxyaalo oo qaali aad isgelinaysid aad isku qurxinaysid kama muuqanayso haddii xataa qalbigaaga uu kuu deganeen marka isku day xataa qalbigaaga inaad dejisid waayo adduun kama dhammaado dhibaato mar walba adduunka waxa weeye waa doonaan wada saarannahay doontaas marna waxa weeye saas waa movement waa saas doonta marna cirka aad mar hoose aad marka noloshana waa taa doontaas la wada saaran yahay waxa weeye aayar waa in loo socdaa aayarna ma aragtay nolosha loo wataa stress buuq waxyaalaha baabi'iyo waa qofka dumarka ah marka sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh